بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قف كستو أدونك جوغا وحو جعليهاي أو رادينيو waa liibaanta laakiin wax gaara ayaaba iska yar liibaantu waa go'aan iyo suugasho ka timaada adiga gudahaaga sidaas oo kale dhibaatooyinka iyo ciriiriga iyagana waa kuwa ka yimaada adiga gudahaaga liibaanta kaaga ma baahna in aad soo iibsato ee waxay kaaga baahan tahay in aad beerato kuma xirna adiga liibaantaada waxa aad haysato maxaa yeelay hantida iyo lacagta ma aha liibaan ma dhici karto in aan wax ka bedelno wixiina soo dhaafay iska laab wixii ku soo dhaafay ee fur warqada waxa maanta ku soo wajihi doona liibaanta waa cudur gudba ka dheerow dadka baasaysiga badan ee la saaxiib dadka dhanka fiican wax ka eega caqabad kasta waxa ay leedahay kun xal dhulku wuu wareegaa qoraxdu way wareegtaa dayaxu wuu wareegaa xidiguhu way wareegaan meerayaasho dhan way wareegaan bah qoraxeedyadoo dhan way wareegaan waxaynu ku wareegaan cala darbi tabaana xagga sare samada marka aynu eegno waxa inoo muuqda oo xidigo aynu arki karna habeenkii waxaasoo dhan way wareegaan caalamkoo dhan wuu wareegaa waqtigu wuu wareegaa adiga maxaa meel ku suray adiga maxaa meel ku taagay oo aad uga wareegi laadahay wax kasta oo noloshaada lid ku ah maxaad ugu wareegi laadahay adiga liibaantaada soo beerashadeeda iyo soo kasbashadeeda ka wareeg oo ka dhaqaaq meesha dhibaatooyinka ay kuugu sugan tahay una wareeg oo aad meesha adiga liibaantaada ay ku jirto aan u soo gudbo noloshayda sidee baan ku bedeli karaa biidnillaahi albaari qaybtani laba mawduuc baan kuugu soo gudbin labadaasi mawduuc waa asaaska awal inta aan loo gudagelin isbedelka nolosha iyo nolosha qaabka wax looga bedeli karo awalka waxaan kuu soo gudbinayaa labadan mawduuc isku day labadan qodob inaad sugto oo aad meel saadho si mawduucyada kale aad ula socon kadho ama aad ugu dhaqmi kadho ka faa'iideysigooda qodobka koowaad waxa uu yahay liibaantu waxa ay ka bilaabato waa qalbiga liibaan haddii la soo magac qaado liibaantaasi waxay ka bilaabanaysaa waa qalbiga ee qalbiga ka nadiifi oo ka mayr daxalka qalbigani daxalaystay ka mayr oo ka dhaq daxalka ka saar mugdiga una saar ifka iyo ilayska ka qaad qalbigaaga culayska ka saar qalbigaaga ciriiriga u saar qalbigaaga nuurka iyo iftiinka u saar qalbigaaga liibaanta iyo barwaaqada u saar qalbigaaga meeshuu ku barwaaqoobayo oo faa'iidooyinka ay ku jirto u saar qalbigaaga ka hor isbedelka noloshaada iyo inta adiga aadan doonin isbedelka naftaada isku day in qalbigaaga aad nadiifiso lianna liibaantoo dhan waxay ka bilaabato waa qalbiga waxa isweydiin mudan qalbiga maxaan ku nadiifin karaa qalbiga waxyaalo badan ayaa saameeya alla subxaanahu wa tacaala qur-aankan uu ku tilmaamay qofka haddii waxyaalaha maadiyaadka uu haysto haddii lacagtii uu haysto gurigii haddii uu haysto bulshadii hadduu ku dhex nool yahay cuntadii cabitaankii hadduu helayo laakiin qalbigiisa uu gubanaya qofkaasi liibaan kuma sugna si marka liibaan loo gaaro awalka waxa asal ah in qalbiga uu dareema liibaan haddii aynu doonayno in nolosheena wax aynu ka bedelno awal waa in qalbigeena aynu soo nadiifino oo qalbigaynu uu noqdo qalbi nadiif ah oo dareemaya farxad oo dareemaya liibaan oo dareemaya sacaada qalbi faraxsan oo dhoola cadeynaya wuxuu kasban karaa nolosha isbedelkeeda inuu keensado qalbiga wax badan ayaa saameeya qalbiga wax badan baa waxay ka dhigaan mugdi qalbiga wax badan baa ciriiri geliya qalbiga waxyaalo badan baa waxay ku noqdaan caqabad kuwaasoo u diida in nolosha macaankeeda uu dareemo qalbiga waxa lagu saafi garan karo oo qalbigaasi nuurka lagu gelin karo oo qalbiga farxadda uu ku dareemi karo waa hal mid halka qodobna wuxuu yahay at-tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala la toobad keeno in Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo laabto alana waxa uu inoo tilmaamay waman lam yaj'al Allahu nuuran fama lahu min nuur qofkuusan eeba subhanahu wa ta'ala nuur uusan u yeelin oo Allah subhanahu wa ta'ala nuur uusan siin qofkaasi nuur uma sugna qalbiga nuurkiisa alla baa bixin kara qofkii nuurkaasi alla subxaanahu wa ta'ala uusan siinde qofkaasi nuur uma sugna way laana qalbiga dambiga ayaa madoobeeya macaasida madoobaysa heesaha madoobeynaya xanta xumaha aynu ku dhaceen oo dhan qalbigani madoobeynayaan alla inoo tilmaamay subxaanahu wa ta'ala kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun qalbigooda waxa ku dhaxalistay waxay kasbanayeen xumaheena iyo dambigeena haddii uu bato waxay saameynayaan qalbigeena ma dhici kara marka inaynu dareeno nolosha macaankeeda
iska badaa isbedel inaynu helno. awalka waxaa muhiim ah in qalbigaasi aynu nadiifino, aan ka nadiifino daxalka, aan ka saarno ciriiriga, aan ka fogeyno mugdiga, in qalbigeena uu dareemayo farxad. qalbigeena farxadda marka uu dareemayo baa waxay keensan kadhaa inaynu u gudubno nolosheena seeban wax uga bedeli karnaa, lianna liibaanta asalkeeda waxay kasoo bilaabato waa qalbiga. alla subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu thumma yastakfir illah yajid illaha ghafuuran raxiima. qofkii xumaan sameeya ama naftiisii dulmiya intaa kadib alla subxaana wa tacaala istikfaar weydiisto alla xaggiisa u laabta, ruuxaasi wuxuu heli alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan. alla la wuu tilmaamay qofkii xumaan sameeya lianna xumaha qalbigay dhibi, ama ruuxii naftiisii dulmiya, dembiga waa dulmi aynu nafta aynu dulmin, oo wamaca daalika alla u laabta subxaana wa tacaala xumihii wixii kasoo dhex baxa wuxuu helayaa eebe naxariis badan oo dembiga u dhaafa. alla sidoo kale wuxuu leeyahay uu inoo tilmaamay wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yattabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima. alla wuxuu leeyahay waxa aan doonayaa inaan idinka toobad aqbalo. sidoo kale alla wuxuu doonayaa subxaana wa tacaala kuwii shahawaadka raacay oo naftooda iyo shaydaanka waxa uu faraya raacay oo ay ka xoog badatay inay kasoo leexdaan, inay kasoo iishaan iilasho aad u ballaaran oo aad u weyn. alla wuxuu inoogu baaqay in nafta aynu dahirno oo qalbigaas aynu u soo leexino meesha nuurka uu ka heli karo oo alla subxaana wa tacaala xaggiisa ah. sidoo kale rabbigana wuxuu inoo tilmaamay fa in yatuubuu yaku khayran lahum wa in yatawallow yucadibuhum allahu cadaaban aliima fi dunya wa fi laakhirati wamaa lahum fi laakhirati min waliyin walaa nasiir. alla wuxuu yidhi inay toobad keenaan oo ay soo laabtaan baa waxa ugu jira khayr. haddii ay jeestaan oo ay toobad keeni waayaan, alla subxaana wa tacaala wuxuu cadaabayaa cadaab kulul inta adduunka ay joogaan iyo maalinka aakhiro. adduunka murug buu ku noolaan, dhibaatooyin buu dareemi, ciriirigii buu dareemi, mugdigii buu ku jiraa, walwalkii buu dareemaya, walbahaarkii buu dareemaya. adduunkan waa lagu cadaabaya, maalinka aakhirana eebba cadaabi doona subxaana wa tacaala hadday toobad keeni waayaan, lianna khayrka wuxuu ugu jiro waa toobadkeen, inay soo laabtaan oo qalbiga ay nadiifiyaan. allana sidoo kale wuxuu yidhi intaa kadibna dhulka uguma sugna wax u gargaara oo u noqon kara gacal, wax dareensiiya naxariis iyo jacayl iyo kalgacal adduunka ka heli maayaan, wax u gargaarana heli maayaan. inay toobad keenaan baa waxay ku sugan tahay inay badbaadaan. alla sidoo kale wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru yowma laa yukhzi illaahu annabiya waaladiina aamanuu macah nuuruhum yascaa bayna aydiihim وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله وحو إنو تلمامي كو إيمانك لغا هلايو الله توبت كين نصوحه داعد الله سبحانه وتعالى توبت كين الله أسوى لابتا سيدب يبا أقول لابتا حقي سبحانه وتعالى أرنك هدي لا إذن كهلو الله وحو دافع دنبيجينا ومع ذلك وحو إذن قلن دون وجنو أي هوس عطوبيال ومال الله سبحانه وتعالى وسن هوجن دون نبيغا iyo wixii nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam. maalinka waxa horboodi doona waa nuurkooda, nuurkii adduunka ay ku soo kasbadeen inta ifka ay joogeen baa waxay ku jireen nuur. maalinka nuurkii baa horboodi, markaas waxa ay leeyihiin ilaahow nuurka maanta noo taamiyeel, allow nuurka maanta taam nooga dhig, oo nuurka maanta allow noo buux, allow dembigeena dhaaf. waxa taa allah wax kasta awoodo. ruuxan maanta adduunka nuur aan ku helin, maalinka nuur inuu helo waa naadir. adiga maanta qalbigaaga nuurka geli ee ka saar mugdiga iyo ciriiriga u dareemayo. sidaas oo kale rabbigeena wuxuu inoo tilmaamay subxaana wa tacaala wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha wastakfiruuhu thumma tuubuu ilayhi ina rabbii qariibun mujiib. alla wuxuu yidhi reer samuud walaalkood waa saalix, isaga ayaa loo diray. markaasaa wuxuu yidhi qoomkaygiiyow ilaahay subxaana wa tacaala caabuda, ilaah kale ma lihidiin, mid kaloo la caabuda idinma sugnay. alla subxaana wa tacaala keligii caabuda, isaga dhulka idinku beeray oo dhulkaas idinku camiray. alla subxaana wa tacaala alla xaggii dembi dhaaf weydiista, isaga xaggiisa u laabta, rabbiga
rabbigayga waa midka dhawaanshaha badan oo adoonkiisa aqbala subxaanahu wa ta'ala alla waa ku dhow yahay ومع ذلك wuu ku aqbalaya alla sidoo kale muxuu tilmaamay ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وسورة الهود sidaas oo kale markaas wuxuu ku yiri qoomkaygiiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa u laabta xagga sare ba alla wuxuu idinkaga keenay subxaanahu wa ta'ala roob idinka awoodiinana awood buu idinku sii dari hajeedsanina idinkoo mujrimiin oo dambigiina u waaweyn idinkoo dambigiina u batay allah ka jeesanina ee alla subxaanahu wa ta'ala u laabto dambi dhaaf weydiista hankiiba ku ziyaadaya nuurkiiba ku ziyaadaya farxadiiba ku ziyaadaysa ee dambiga intaad ka baxdaan alla subxaanahu wa ta'ala xaqiisa u laabta alla sidoo kale wuxuu yiri aw la yarawna annahum yuftanuna fi 'aamin marratin aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yatadhakkarun alla wuxuu yiri arki maayaan miya in sanadkiiba mar ama laba goor la imtixaamo arinka arki maayaan miya inta kadibna alla subxaanahu wa ta'ala xaqiisa aysan u laabanaynin oo aysan fikirayn oo aysan xisaabtamaynin oo noloshani isbedelkeeda aysan ba ka fikirayn arinka kuma muuqatamiya alla inoo tilmaamay subxaanahu wa ta'ala marka walaalayaal waan ku dheeraaday qodobka u horeeya waxa ay tahay qalbiga baa wuxuu yahay shayga laga dareemo liibaanta iyo sacaadada qalbigaasi aynu ka saarna mugdiga qalbigaasi aynu ka saarna ciriiriga qalbigaasi aynu ka buuxina nuurkana Allah bixiya subxaanahu wa ta'ala aynu ka soo baxana xumaha aynu ka soo baxana dambiga si qalbigana uu u noqdo saafi qalbigana marka saafi uu noqdo oo nuurkii aynu helno oo ciriiriga aynu ka baxno oo farxadii aynu dareeno oo nolosha macaankeeda aynu dhadhansano xiliga waxa iman kara in nolosheena aynu wax ka bedelno asalna Allah subxaanahu wa ta'ala aadanaha markuu abuurayay baarbi wuxuu u abuuray subxaanahu wa ta'ala liibaan aslan rabbigana wuxuu inoo abuuray liibaan abeen aadan baa la uumay alla gacantiisu nagu uumay ruuxdiisii buu nagu afuufay abeen aadan calayhi salaam jannadii baa la geliyay aslan aadanaha waxa loo uumay liibaan laakiin aadanaha liibaantaasi isaga iska fasahaadaya marka abeen aadan loo yiri calayhi salaam geedka ha cunin oo jannada gal kacab ka cun waxa doontaa kuugu sugan oo liibaantii loo uumay baa wixii isaga loo diiday oo xumihiisii ahaa buu la yimid inta kadibna liibaantiisii baa waxay noqotay in lagala wareego oo adduunka dhibka badan la keeno aslan alla subxaanahu wa ta'ala wuxuu inoo uumay liibaan ee inaga ayaa qalbigana xumaha ka buuxina oo liibaantaasi lidigeeda la timaada marka aslan waxay tahay walaalayaal in qalbigaasi aynu nadiifino aynu ka dhaqno xumaha iyo ciriiriga iyo culayska uu dareemayo ilaa qalbigeena nuurka iimaanka uu soo galo qodobka labaad baa waxa uu yahay hadaan soo fahnay arinkaasi dooro qaabkaad u noolaan doonto dooro qaabkaad u noolaanayso ee adiga ha u noolaanin dadka qaabka ay kula doonayaan haddii adiga aad doonayso in noloshaada wax aad ka bedesho waxaa qasab ah in adiga aad doorato qaabkaad u noolaanayso ee dadka yeysan kuu doorin adiga qaabkaad u noolaan ee markasta waxaad ogaataa dadkaasi isku mid ma tihiin isku hadal ma tihiin isku dabeecad ma tihiin isku jir ma tihiin isku qaab uma socotaan isku qaab uma seexataan dadka waad ka gedisan tahay ee dadka iyo bulshada inta adiga aad fiiriso oo dadka qayb kamid ah qaabkay u nool yihiin inta adiga ay ku muuqato ha u malaynin in adiga qaabkaasi ay kugu jirto liibaan ee adiga qaabkaad u noolaanayso dooro wax kula mid ah maalinkii ifka la uumay ilaa xilliga hadda la joogo ilaa qiyaamu saacaha adduunka ma soo marin mana soo mari doone ee awalka adiga noqo ee waxa adiga aad doorataa qaabkaad u noolaan lahayd haddii aadan dooranin qaabkaad u noolaan lahayd haddii adiga aadan dooranin noloshaada ma bedeli kartid laana qofkaad ku dayan isku dabeecad ma tihiin isku qaab ma tihiin isku dhaqan ma tihiin waxa dhici kara qaabka kuu muuqato oo qofka adiga aad ku raacayso in adiga aysanba kuu suubanba suurtagal ee adiga dooro qaabkaad u noolaanayso ee noqo mid doorto ku qanca qaabku u noolaanayo ee adiga ha ku qancin hana dooranin in adiga dadka kale ay ku dooraan qaabkaad u noolaanayso qodobka labaadna wuxuu yahay adiga dooro qaabkaad u noolaanayso jazaakumullahu khayran qaybta labaad la socda aad baad mahadsantihiin